Audio Jungle. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام waxaad ku soo dhawaataan koorsiga aan ku baranaynay sidaan u samaysan lahayn website lacag la'aan anagoona wax kood aanan qorin. Inta aanan muuqaalka u guda galin haddaad tahay qof cusub waxaan kaa codsanayaa inaad channel subscribe saartid sidoo kale gambalalka aad furtid si ay ku soo gaaraan muuqaaladan soo dhigayno. casharkaana waa kaga hadli doonaa qaybtan la yiraahdo server side. Dabcan website-ku wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood, labadaas qayb oo ah yani server side iyo client side. haddaan af Soomaaliyeedna waa qaybta soo booqashayaalka dadka markay soo booqdaan website-kaaga ay daawadaan waxaa la yiraahdaa client side. sidoo kale qaybta qofka adminka haayo oo waxyaalaha soo dhigaya maamulaya wax ka bedelayan waxaa la yiraahdaa in server side. marka maadaama meeshan ay tahay meesha wax laga maamulayo waxaa qasab nagu ah inaan wax ka fahansanahay. ugu horreyn hadda qaybta ugu horeysa ka bilaabo haddeetan meeshan ugu koreyso oo searching-ka waxaa loogu talagalay in mustaqbalka haddaan boosti badan soo dhigna camal in boosti ka mid ah in aad halkan ku raadisid haddii aad wax ka bedel lahayd ama haddii boostiga aad tir lahayd halkana ku search galinaysaa maadaama boostiyaal fara badan aad soo boosti garaysay in aad mid kaga fiirisid ay dhib kugu noqonayso kaliya intaad ku search galinaysaa boostigaagana sidaas ay ku soo baxaa. sidoo kale calaamadan saddex oo xariiqmood waxaa loogu talagalay waxay la shaqeysaa menu-gan haddii aad click garaysid waxaa dhacaya inuu menu-gaas laga qariyo. sidoo kale halkan markaa ku dhufano mar labaad ay soo baxdo meeshan waxaa loogu talagalay meel alaal meesha joogtid. for example hadeertan inta aan riixo inta markaan riixno in meeshan aan joognaa mugtahay marka si aad yani interface-ka ama in server side-ka meesha ugu horeyso qofka markuu soo galo la geynayo si lagu geeyo automatically halkan ayaa riixaysaa wuxuuna ku geynayaa meesha ugu horeyso qofka admin markuu soo galo qaabka uu arkayo. hadeertan qaybtan kor waan ka dhamaanay meeshan waxaa ku qoran in education network waa title-kii aan siinay in website-keena. marka hadeertan haddii aad halkan fiirisid dabcan waxaa ku jiro blogger la yiraahdo education network. haddii aad u baahan tahay blog cusub inaad sameysid yani halkii server side wuxuu awood u leeyahay dhowr blog in laga dhex abuuro balse haddaad u baahan tahay new aad leedahay kadibna magacaad u baxsanaysaa ayadana waa aad iyo aad ay u fududahay. in halkan waxaa loogu talagalay qofka inuu boosti soo saaro in meeshan waxaa loogu talagalay boost alaala boostigaas saartid inuu aad imaatid. hadeertan wax boosti kuma jiro all meesha ay ku qoran tahay bracket-ka dhexdiisa waxaa ku jira zero taasna waxay u dhigan tahay boost ma lahan. sidoo kale halkan wuxuu ku leeyahay wax boost ma jiro. status waxaa loogu talagalay yani website-ka qaabkiisa inaad kala socotid dadka soo booqday in maalinta bilooyinka last month in followerska inta qofooda ku soo xirantay boostidaada intay yihiin commentiga inta laga bixiyay waxaas oo idin loogu talagalay in halkan waxaa kala soconaysaa website-kaaga dhaqdhaqaaqiisa iyo qaabka uu shaqeyn doono. halkan waxaa loogu talagalay commenti qof walba commenti kuu soo bixiyo in qaabkaad uga jawaab lahayd commentigaas haddii aad commentiga aad dibsatid qaabka aad commentigaas website-ka kaga saar lahayd. meeshan waxaa loogu talagalay earning-kan wuxuu yahay in future-ka haddaad adi in website-kaaga ku xiranaysa AdSense halkan ayaad ka maamuli doontaa. in hadeertan waa fresh waa new wax in AdSense kuma xirano ma ahan website aan ku shaqeynayno. marka haddii aan u baahno inaan lacag ka sameynan halkan ayaan imaan doonaa. meeshan waxaa loogu talagalay pageska wuxuu quseeyaa website-ka tabcan wuxuu leeyahay pages fara badan. hadeertan haddii aan fiirino meeshan featureska ay ku qoran tahay in waxaa ku jiro multiple production kadibna drop down 1 drop down 2 mid walba markii lagu dhufto waxaa la rabaa inuu noqdo page u qaas ah wax alaal wixii drop down 1 kan qusay inay halkan yimaadaan. marka waxaad awood u leedahay page qaas ah inaad u sameysid. sidoo kale menu-yadan way la mid yihiin balse kuwan waa kuwa default ah waan iska bedeli doonaa. in markii aan ka baxno page-ka layout waxaa loogu talagalay qaab dhismeedka website-kaaga in aad wax ka bedeshid in hadday ahaa lahayd sectionada sidii menu-yada iyo footer-ka iyo waxyaalihii adi oo website-ka qusay dhan qayb ayuu u kala saarayaa.
ayadana waa arki doonaa qaabka loo bedelo. Halkan waan ogeyn waa meeshii bloggerka template-ka aan kasoo upload garaynay. mideeda kale waxaan rabay template kale, midka hadda aan isticmaalayna ma ahan midka qurxoon ayaan arkay, marka waxaan rabaa inaan midkaas aan isticmaalo. Si aan u isticmaalo laba siyaabood aan muuqaalkan kii ka horeeyay kaga soo hadlay. Marka restore ayaan leeyahay, restore markaan dhahno kadibna upload ayaan leenahay. Upload markaan dhahno waxaan tagaynaa midka aan hadda aan soo dejiyey, desktop-ka ayuu ii yaalaa. kadibna waxaan dooranaynaa in fileka uu ku samaysan yahay notepad. sidoo kale waxaad xasuusataa notepad haddeertan saad arkaysid ask your question meesha ku qoran tahay waa file ku samaysan notepad, balse midkaan rabno waa kan. waxaan ku aqoonsan doontaa waxaa ku qoran ama ku save garaysan extension ama siiqo ama fileka waxaa lagu save gareeyay XML file la yiraahdo, kaas ayaa dooranaya. kadibna sidaas ayuu kusoo upload gareynaa. sidoo kale qaybtan haddaan sii gabagabeeyo, inta waxaa ku qoran settingkana waxaa loogu talagalay waxyaalaha ugu muhiimsan website-kaaga inaad ka bedeshid, sida haddii ahaa lahayd yacni ciwaanka page-kaaga ama title-kiisa inaad ka bedeshid. sidoo kale haddeertan waxaan ka dhigaynaa meesha education ku qoran tahay Somali Share Education Network. Save ayaan leeyahay. save markaan dhahnay automatically wuu isbedelay, wuxuuna noqday Somali Share Education Network. halkan waxaa loogu talagalay description, yacni website-kaaga haddaa qeexitaan aa u sameynaysid, balse haddaa rabtid ku darso, haddaa rabtid sida iskaga daa. sidoo kale page-keena ama website-keena luqadda oo had iyo jeer ku baxayo waxay noqon doontaa English. haddaad doontidna waa bedeli kartaa, balse ma rabo inaan bedelo, sidiisa ayaan iskaga dhaafaa. waxaan aadi doonaa qaybta kale hoose, ayadana waxaa ku jiro sida privacy-kii. meeshan waxaa loogu talagalay bloggerkeena yacni magaca lagu soo booqanayo inuu kan yahay. haddii aan u baahannahay lacala future-ka haddaan iibsano domain name-kaas halkan gelinay, kadibna automatically yacni blogger.com meeshan oo subdomain uu ka yahay wuu iska bedeli doonaa, wuxuu kuu noqon doonaa domain caadi ah. asagana waxaan isku dayi doonaa in aan muuqaal ka soo sameeyo qaabka loo sameysanayo domain name free ah. intaanoo kalena website-ka waa ugu quseeyaa, sida mostly hadda deertan saad arkaysid markii aan wax soo upload garayno yacni main page-keena boostyada oo soo bandhigayo maximum wax ugu badan wuxuu noqon doonaa 7 wixii ka bato yacni hadda iyo jeer wuxuu soo bandhigi doonaa 7 ugu cusub. haddaa rabtid waa ka bedeli kartaa, haddii kalena sidiis kaga dhaaf. marka intaan kalena muhiim ma ahan, laakiin haddaa rabtid waa sii eegi kartaa, waa iska fiican tahay kulli in aad aqoon aad ka haysatid. almuhiim hoos aan sii aadno, hoos haddaan sii aadno meeshan waxaa ku qoran reading listigan muhiim ma ahan, balse keliya warbixin ku saabsan bloggerka. markaasina sidaas aan ugu tagaynaa. meesha kale ugu dambeysay waa midkan view blog waxaa loogu talagalay mar alaala markii aad rabtid inaad website-kaaga booqatid, aad aragtid yacni sida ay dadka markay soo booqdaan qaabka muuqaaleedka ay u arkayaan. halkan ayaa riixaysaa view blog ayaan leenahay. view blog markaan nahnay waxaa laga rabaa maadaama haddeertaan aan template-kii bedelnay inuu template-kii hadda nooga soo dhigo. waana arkaysaa template-kii hadda dhow aan soo upload gareeyay waa midkan, midkii horena waa kan. haddeertaan kan kuma jiro, balse mar hore ayaan view blog soo dhahnay, that's why oo halkan ugu muuqdaa. haddeertaan haddii aan refresh dhaho halkan gebi ahaan wuu ka bixi doonaa, waxaana soo muuqan doono midka hadda dhow aan soo upload gareynay. saad arkaysidna asigii ayaa noo soo muuqdo. muuqaalkeenana halkan ayuu ka eg yahay. inta aan muuqaalka xiga aan ku kulmi doono waxaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.